oo macallinkiina ama iskuulka rectorka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan groupkan muslimiin baanay meelaan ku tukanno nadiifaan u baahanay hana la siiyo waxay u badan tahay in la idin siin doono waxa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rector walba iyo macallin kastaaba shakhsiyadiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kan inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idin ogolaado bay u badan tahay waxa jira maanta iskuulla la meel lagu tukado ma dawladda tidhi hal la siiyo iskuulka meel laga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rectorkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meel ay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi taalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacni isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo rectorkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatx ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshu u sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhaweeyaan waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhaweystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof quman oo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedayna sheekha ka warrami doona meesha madowna waa ku asaxaysaa insha Allah adiga Allah waa ka aqbalaya laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadisay inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru wajru man amila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkooda oo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar leedsiya ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiina hore xoogane haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya qaar u taagalaydeen baa imanayo markii hore aan qarsan kareynin laakiin marka meel u salaxdeen oo hagaajiseen qaar badan oo markii hore la baqayay baa oranaya wallahi de salaad waa iska fiicanta waa loo golay iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale kalaaska kugula jirtay Norweejiyada aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa inay curiosity ku qaado ay ku weydiisana maxaad la forforsanaysaa baan rabaa iyadu su'aasha ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo taksiila ah Mareykanka ayaa wuxuu yiri 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiye buu yiri taksiga gudihiisa ana shahaada ugu qabtay buu yiri 58 qof ayaan taksiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yiri dadka wuxuu yiri airport kan dhigtaa taksiga marka dadku soo fuulun bal cajlad quraana ku rida kale Yurub waliba Scandinavia ku dad yara xidhan laakiin North America iyo meelahaas wadada isaga furfuran cajlad quraanan galiya buu yiri waxay yiraahdaan waxaan fiican heesaya muxuu yahay markaasaan yiraahdaa buu yiri waa the last word ka timaada xagga Rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yiri sharaxayga waayo qofkan wuxuu raboon albaabka cid u furta si uu la hadlo oo diin uga la hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa inuu halka ka bilaabo uu diidana ajlada uma saara buu yiri iyaga curious noqdo su'aasha weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahay idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inta Norweejiyada ku aragto ku tiraahdo maxaad sameeynaysaa dabeetana tiraahdo tan salaad baa la yiraahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiiba waa caynkaas oo halka uga sharaxdaa baan rabaa saadaradeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel mid dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aalam insha Allah
نو وقت إلى لنا صدق سؤالات أو أفر سؤالات وسكنا عن سؤال إن شاء الله تعالى كسو كوبينو أيام كسو قابلنا هنا سؤالي مركزية تيران ضد بدن وسؤال سوق قرطي لكن عن مغلين أكره لهذا وأنا لا ضايع وأنا صوبري إن شاء الله يعني شافوا waxaad ka warantaa waa dimuqraadiyadda waxaan aragnay dad badan oo dimuqraadiyadda amaanaya islaamkana caayay horta farqiga u dhaxeeya labadooda maxay yihiin waa tan labaad ee kelimada masiix la yiraahdo ma masiixu dijaal baa looga jeedaa mise masiix ciise ah baa looga jeedaa aan sii raacina insha Allah waxay leeyihiin oo kale waxaa jira qof saaxiibka ah oo diinta caaya ilaahay caaya rasuulka caaya markaan kala hadlana hadal xun igu jawaabo ma la dagaalami karaa arrintaas ma kula dagaalami karaa su-aasha ugu dambaysa oo aan muhiim laga maarmin iyadana waxay tahay wuxuu yiri wiil baa wuxuu leeyahay iskoolka gabadh baan la fadhiistaa kursigaan isla fadhiisanaa aniguna ma rabee macallimada ay ugu qasabta maxaan samayn karayaa sidaan ugu dambaabaya Allah subhanahu wa ta'ala كلمة قرون ويوحي سؤالي ديمقراطية وسؤال رنتي مد ولا يدرس كذا استقبل عليه ديمقراسي وكلمة لما كلمة دودا في غريقة ككوبا ودي في عربي اللي معناه يلا مدا حكم الشعب في الصومال إنما لا شعبي حكم كبد السوداء إنه استعمال لهم حكم كي شعبك أما حكم كي ددوينه لكن وحي هذان بروفيسور مسلم والله يراده جعفر إدريس أيا وحي هذا وأرجع كلية مقع عن حقيقة لهين بيد هذا يعني ومقع عن حقيقة لهين ويدوني ده لما ركبوا يدي مال شعب دم وحكمه ما يشروا على كل حال والنظام كاسي كسليسن والنظام سياسية سيدو هذا ويالله الدنيا دو يسقط على عيسى أركان أي كتهاي إن لك على صار صدح السلطات أما صدح ده معمول يا سلطة قضاء أما جوديشري أما قلادة محكمة ده هاي قار نقدان سلطة التشريع وحوي قانين أما برلمانتيريان كو قار نقضة إيه سلطة الدولة نمو أما حكومة وزير دي رئيس الوزراء وحيلا نوعي قار نقضان ما أنت نظام كدنيا قاب كوي له وهي هذا الديمقراطية صدح قيبات بالله قيبية مدي الدنيا كما شرته وواتي أريجا ربطها وشيء جاي وأن شعبك وحكمه أثنس بقى قدام بيسبي هذان حتى أثنس مركي كجر تبي هذان ما يهين ديمقراطية ويا شعب كورنا الله ما وضع قلين دمركم كم تشرين أنا عرورتكم كم تشرين أضامه كم تشرين ستيس الشبكة الرسمية قف كان لهين كم تشرين وهي هاي كوحي رقابا أو فلسفة الرأي إن ضد الله سعتي كامر كلا صور ضعفه لبعض النوع كلا إلى هذي والنوع الله يراد نظام الجمعيات هل دولة قرى الدنيا كقدر قنته سويسرلاند ودن كلا يراد ويان وصدق دي السلطات كوح قرى سكوت هايسو أو برلمانك أي قضاء دون كتير سيئين مدحوينه هنا كتير سيئين وحورنا مبا كوح قرى كصور تاد يتنا نظام الجمعيات النظام الله يراد وسي كلا دادجا قيبت هذا كلا وقيبت الله يقارنه برلمانتيريان كا oo yana laba qaybood u qaybsanta qayb barlamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana wanaag iyo sama ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaaraam ariga ma fahmi karaysaa مثلا khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay ma jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homophilku
cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu cododheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaarta tiro badatay ee wax walba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cododheerida yaa leh dabeetana ciddii 51% heshaawun inay meesha maamusho islaamnimadu kaa way ka gedisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhaahdo 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii la isla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaabu wa sunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybooda kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa calaa kulli xaal ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kalaynu isweydiin ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna daad ka guuri karto ka guur daad ku qasbantayna kursigaaga durqso wallahu aclam